shirkii tobanaad ee la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa lagu qabtay magaalada tan London ee wadankan Ingiriiska. Shirkan ayaa dawladda Soomaaliya waxaa uga qayb galay Mudane Saciid Jaamac Maxamed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. iyadoo khudbadda furitaanka shirka la siiyay Soomaaliya ayaa wasiirka oo aan wax ka weydiinay waxa uu inooga warbixiyay waxyaabihii halkaasi looga wada hadlay. sida hore u maqasheen ma wararka la socotaan dawladda Soomaaliyeed qaybta wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda waxay muddo ku mashquulsanayd culayska saarisay sida ula dagaalami lahayd sharci darrada kalluumaysatada ee ka socda dalka iyo xeebaha badaha Soomaaliya. haddaba sida loo socdo markib aan qabanay oo ay dawladda Soomaaliya qabatay ganaxday oo la yiraahdo Grega 1 kadib adduunka oo dhan ayaa Soomaaliya u soo jeestay si loola dagaalamo kalluumaysatada sharci darrada ah. taas ayaa waxa keentay in lagu casumo shirka tobanaad looga hadlayo arrimaha kalluumaysatada sharci darrada ah in Soomaaliya lagu casumo Chatham House oo ay Ingiriiska ku taal wadanka Ingiriiska London. shirkaas aan u imanay maanta khudbadana waxa ugu horeysay furitaanka shirka la siiyay inay Soomaaliya shirka furto khudbadda ugu horeysan ka akhriso meesha ugu muhiimsan. runtii guul weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaasatan dawladda iyo wasaaradda kalluumaysiga. sababtu waxa weeye waxa aan gaarnay heer la dagaalamo oo iyadoo aanan haysan ciidamo badeed oo xoogan wadankuna aanu isku wada xidhnayn marka ay noqoto xagga iskaashiga. inkastoo wasaaraddu aad u dadaashay shaqooyin waaweyn qabatay sidii loola dagaalami lahaana culays u saartay laakiin maadaama burcabadeedka istaagay waxa loo baahan yahay in shaqo abuuris degdeg ah loo sameeyo taasoo ah talaabada hadda aan ku jirno oo la tahay in shaqo loo sameeyo si ay kalluumaysatadu u sameyn wax burcadnimada burcadeedkana laga saacido sidii aan mar dambe u dhici lahayn in kalluunka Soomaaliyeed ay iska yimaadaan wadamo shisheeye oo iska gurtaan. sharciyada la galayo maamul goboleedyada la galayaan dawladaha shisheeyana waa in ay dawladda dhexe mar walba ay ku leedahay lug ay og tahay oo ogolaanshaheeda ay leedahay haddii kale ma soconayo sharcigaas amba heshiiskaas. Yuusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.